يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. wuxuu darsigeenu ka bilaabmayaa caawa in sha allahu tacaala halka uu sheekhu yihi xafidahu llah baabu kalaami rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama fi shicri, ay hada kani baabu kalaami rasuuli llah, rasuulka ilaahi calayhi salaatu wassalaam hadalkiisa baabkii ka hadlaya weeyaan fi shicri, gabayga rasuulku uu ku hadlay ama wax ka yidhi. gabaygu waxa uu la mid yahay hadalkan kale ee lagu hadlayo, kaasuu la mid yahay oo gabaygu waa un hadal wasan loo sameeyey iyo qaafiye uu ku socdo iyo qaab uu u dhaco. wixii wanaagsan xagga alfaadiisa ereyada lagu gabyayo marka la eego iyo macnaha gabaygu uu wato, wax fiican buu noqonaya oo wanaagsan oo ay bannaan tahay in la tiriyo, in la qaado gabayga ama la dhegeysto. wixii xun marka la eego alfaada lagu gabyayo iyo macnaha ay wataanna mid xun buu noqonaya oo in la qaadaana ayna bannaanayn, in la dhegeystaana ayna bannaanayn. sidaa awgeed ayaa alimaamu albukhaari raximahu llah kitaabkiisa aladab almufrad can cabdillaahi bni camr isagoo ka warinaya waxa uu leeyahy nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wassalaam ashicru bimansilati alkalaam xasanuhu ka xasani alkalaam wa qabiixuhu ka qabiixi alkalaam. gabaygu wuxuu la boos yahay hadalka, kiisa wanaagsan hadalka wanaagsan unbuu la mid yahay, kiisa xunna hadalka kiisa xun ayuu la mid yahay. wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam in shicriga iyo gabayga ay ka mid tahay mid xikmad wata oo xikmad ay ku duugan tahay. oo ubay bnu kacab waa ka nabiga ka wariyay calayhi salaatu wassalaam inuu nebigu yihi inna min ashicri la xikma, gabayga xikmad ayaa ka mid ah. yacni shicirka iyo gabayga qaarkii waa xikmad. waxaa laga fahmayaa qaar aan xikmad ahayna way jiraan oo min buu nebigu isticmaalay. marka gabigu waa anwaac. marka la fiiriyo qofka gabyaaga ahi waxa uu ka gabyayo iyo waxa uu sheegayo, marka la fiiriyo mid xaqa iyo hanuunka ku taagan ayaa ka mid ah, sida xasaan ibnu thaabit radia allahu tacaala canhu gabayadii uu tirin jiray oo kale. mid ku taagan zandaqo iyo gaalnimo ayaa ka mid ah. mid ku taagan bidca iyo khuraafaad baa ka mid ah. mid ku taagan fisqi iyo daaco ilaahay oo laga baxayo ayaa ka mid ah. marka kolba waxa uu alfaadiisa iyo macnihiisu ay kulansadaan ayaa xukunkiisu uu noqonaya. kaasi waa qodob. rasuulku wuxuu inoo tilmaamay qaar ka mid ah xikmad inay ku jirto calayhi salaatu wassalaam. rasuulku shaacir ma ahayn, gabyaamuu ahayn, oo ilaahay ba subxaana wa tacaala yihi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu. nabiga gabayga maanan barin, umana habboona. marka mid gabyaa ahaa oo magacaa shaacirnimo iyo gabyaa inuu yahay qaadanaya rasuulku muu ahayn calayhi salaatu wassalaam. wuxuu rasuulku ahaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ka ilaaliyey si ayna xujo iyo qiil ayna ugu noqon kuwa gaalada ah ee diintan wax ka sheegaya, ay u soo maraan goordhow iyagoo leh waa gabyaa, qur-aanka iyo waxaan uu watana isagunbaa ku gebiye.
si albaabkaas uuna u furmin ama qiil kuwaas ayna ugu helin ayaa ilaahay subxaana watacaala marka horeba rasuulka inuu gabyaan noqdo oo uu ka ilaaliyo umana habboona buu allah subxaana watacaala yihi mana aanan barin gabayga. gaaladu markay fiiriyeen qur-aanka iyo qaabku u dhacayana kuwoodii gabayga yaqaanay waxay ka markhaati kaceen inuuna gabay ahayn. ilan gabay waa la yaqaanaa, hadalkii caadiga ahayd dadku ay ku hadlayeen maaha, gabay maaha, waa waxay yaqaaneenba ka baxsan oo icjaaz uu ku dhex sugan yahay, lianna waa kalaamu llahi subxaanahu watacaala. wuxuu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam gabay dad kale ay tiriyeen mararka qaarkii mid tiriya, sida inoo iman doonta. marmarna isagaa abyaad kooban rasuulku sheegi jirayba, laakiin taa kumuu noqon inuu isagu gabyaayahay. inuu gabyaayahay nebigu kumuu noqon. abyaad yaryar oo kooban, abyaad yaryar oo kooban oo nebigu uu tirin jiray calayhi salaatu wasalaam, sida beytkii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam: ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdulmuطalib. beytkaa rasuulku markuu tirinayay waa beyt gabay ah, laakiin intii koobnayd ee uu sidaa u sheegay mid gabyaa ku noqday ama gabyaa lagu tilmaamay rasuulku ma ahayn. uu dhegaysan jiray oo asxaabtiisa gabayga waxa weeyaan uu odhan jiray iyo aqriya. markii la weydiiyey caaisha radia allahu canha, nebigu cid kale gabaygeedna soo qaadan jiray, hal kaana yatamathalu bishayin min ashicri, waxay tiri kaana yatamathalu bishicri ibni rawaaxa. saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi ibnu rawaaxa gabaygiisa ayuu nebigu soo qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam. cabdullaahi ibnu rawaaxana wuxuu ka mid ahaa asxaabtii rasuulkay gebi jiray calayhi salaatu wasalaam, oo xasaan ibnu thaabit baa ka mid ahaa, cabdullaahi ibnu rawaaxa ayaa ka mid ahaa, kacab ibnu malik ayaa ka mid ahaa. waxaa ka mid ah hadalladii markaa uu ku gabiyey cabdullaahi ibnu rawaaxa: wayaأtiika biاlأkhbaari man lam tusawidi. taasaa ka mid ah. culamada qaar waxay leeyihiin waxyaabaha loo nisbeeyey cabdullaahi ibnu rawaaxa sariix kumaha ah oo kuma cadda beytkaasi inuu ka mid yahay. haddiiba laga soo qaaday inuu ka mid ahaana gabaygiisa qeyb ka mid oo ku jirtay oo uu koobsaday buu ahaa. laakiin waxaa caan ku ahaa beytkaa nin kale oo طرفة ابن العبد اللي odhan jiray, طرفة ابن العبد اللي odhan jiray oo ahaa raggii jaahiliga ahaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka hor noolaa. gabaygiisay ku jirtay ama mucallaqadiisa waa kii lahaa: satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan wayaأtiika biاlأkhbaari man lam tusawidi. rasuulku mid dhegaysta buu ahaa, sida xadiidkan hadda soo socdaa uu sheegi doono, oo asxaabtiisa gabayga u qaadi jirtay ama u aqrin jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam. can الشhريد ابن سويد رضي الله عنه قال: الشhريد ابن سويد ilaahay raadiyaa ka noqday waxa uu leeyahay: radiftu rasuula الlahi salى الlahu عalayhi wasalama yowma. radiftu waxaan fan galay rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama yowman maalin, oo daabad rasuulku uu lahaa ama uu watay calayhi salaatu wasalaam uu fuushanaa ayuu xagga dambe uu ka fuuray. marka radiftu macnaheedu waa sida, waa in daabadii rasuulku uu fuushanaa, dameerkii rasuulku uu fuushanaa oo kale calayhi salaatu wasalaam, inuu qof la fuulo sidii mucaad ibnu jabal radia allahu canhu kama fi saxiixayn oo kale isna dhacday. kuntu radiifa annabiyi sala allahu calayhi wasalam, mid nebiga fan gashan baan ahaa oo dameer la fuulay. markaasaa waxa ugu wari: yaa mucaad, atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah. ma ogtahay xaqa ilaahay addoomaha uu ku leeyahay iyo addoomuhu xaqa ilaahay ku leeyihiin? xadiidka caanka ah
قال الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيس ساسولي قال حق الله على العباد ألا يشركوا به أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق إلهي أضومها كله وإلى عابدان أين الشرك والصمت وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حق أضومه إلهي كليهن وحق سوى سكوه واجبيه تفضلا منه وإحسانا سوى ديراد إلهي وسيي ساقا سكوه واجبيه لكن عد إلهي وحكوه واجب ساعة مجرته وإنه نعذاب عدي شركي عن كله marka rasuulka nucaad xilliga daabad buu la fuushadaa halkana ashariid ibn suwayd ayaa la fuushan waxay leeyihiin culimadu halka waxa laga qaadanayaa tawaaduci nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo siduu kibirka uga fogaa oo waxa dadkuba ay fuulaan uu warto rasuulku fuuli jiray qaabka uu fuulaana qaab la mid ah buu fuuli jiray hadii laba qof ay daabadii wada fuulayaan sidaas leeg uu baa rasuulku asxaabtiisa marka qaarkii وكحيسن شري وهل دابدي وذا فول شري وكان النبي تواضع عيسى كبر كسيد وقفقع هي علامته سيد أكله إن دابدي لفولي كرا هل قف وفولي كرا يكبر ضنبا إن البنات ولا قادنا يا يوح وشرط يوم إن دبعتي رئيس نافك أو نكو أهين أو حميلة يا أما وقاضي كرا ودي سيته هذا واحد سعودي سيكبر أنت هلا دبيو مركع عنك السيام بناره فقال وحو يري نبي قاله عليه الصلاة والسلام هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء هل معك لتركا جمية من شعر أمية ابن أبي الصلت نكي أمية ابن أبي الصلت لو لنشري شعر جيسي قبل جيسي شيء وحكمنا أي هل معك شيء من شعر أمية ابن أبي الصلت مع جميع وما هيسا وحكمت قبيجي أمية ابن أبي الصلت أمية ابن أبي الصلت وحكمت هذا كين ولا رسولك هرتي عليه الصلاة والسلام والجاهل يجيبوا كمدية قبيا فربضنا وترين شرو نين قبيايا أيو مركاها gabayadiisana waxa ku jiray waxyaabo fara badan oo toosan oo saxan ayaa kamid aha oo ay kamid tahay al-ba'th in la soo bixi doono oo la soo saari doono maalinta qiyaame ilaahay subhanahu wa ta'ala koreyntiisa iyo sareyntiisa waxyaabo badan oo saxan oo toosan baa ku jiray ilaa rasuulku uu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhawaaday inuu islaamo ما إسلامنا وحكو دوادي إنه إسلام إن كاد لا يسلم وحكو دوادي بوليه إنه إسلام وحا قاردي دعوة رسولك عليه الصلاة والسلام إنه النبي صباحي إنه النبي يمد ساسا قاردي ديت ما إسلام كفري يقالمه أيو كردنت ninkaas laakiin gabayadiisa marka la fiiriyo waxyaabo ilaahay uu ku amaanayo uu ku weyneynayo ayaa markaa kamid ah majidullah wa huwa lil majd ahlun rabbuna fi as-samaa'i amsa kabira dhalika al-munshi'u al-hijarata wal mauta wa ahyahum wa kana jadira بالبناء العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا كواسا كمدها إلهي وينيه والشرف بولها إهل بويح إلهين يا ربي جينو حق سروتشوغا ساسو أولنسي marka wuxuu ku dhawaaday inuu islaamo laakiin ma islaamin oo gaalnimo ku dhintay ilaahay baa subhanahu wa ta'ala hidaayada iyo hanuunka isaga markaa haya oo cid uu doono waafajiya gabaygii Umayya ibn Abi Salt wax kamida ma haysa oo macaaga ma yahay faqultu na'am qultu na'am waxaan idhibuuri ha waan haya qaala wuxuu rasuulku yiri عليه الصلاة والسلام هيه
يعني وكان وض هذا قبل أقري صاصي كده أنت كلمة داس قال ورسولك عليه الصلاة والسلام هي يعني وكان بل هذا وض أقري ويا فأنشدته بيتا بيت بان أقريي كم إذا أبيادي أوتريي ننكاس فقال هي يتوحى النبي زيادة أي زيد قدر ثم أنشدته بيتا يتبيت كان قاضي فقال هي أي زيد وحو النبي يقول زيادة حتى أنشدته 100 بيت إلى أن النبي أوتريي بقول بيت أو كم إذا أبيادي أوتريي أمية ابن أبي السلت أخرجه مسلم حديث كواحد صاري مسلم إمام مسلم بصحيح يسكو صاري marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam ee asxaabtiisa mid fara ama ka dalba inay gabay u qaadaan oo gabayadii dadkii hore tiriyeen wax ka mid ah rasuulkuna waa dhageysan jiray calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisana marka ay gabayga qaadayaan nabigu waa ka dhageysan jiray sida Caaisha radiyallahu anha ay tiri كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح عن رسول الله وحنبي حسان ابن ثابت منبر صعد ساجدك وكويس تاغو فكاسا يسوغو تاغن حسان ونبي أماني شرود دفاعي شري وحنا رسولك ورنشري إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله إلهي حسان ابن ثابت وحكوحو شريا ملك جبريل انت وراك النبي قوت الماما أما نبي الدفاع عليه الصلاة والسلام حديث تقوى حق صارتي إنه النبي ورنشري قبي أو قبي أقري ومعك روح القدس وحمعك هذوك حوشريا روح القدس وأهملك جبريل فكان المهم نبيغو دافت عين كاسيو كلها هديتهي دغيس او دغيست غبي من هراء عيد كلا اي تريسي وسوقاته مرمران بدنين ابيات كوبان يسو انو كو غبيو لكن نبيغو غبيا ما هين عليه الصلاه والسلام gabayga in la farabadsado oo aad loo xafido oo la buuxsadana nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waa uu ka digay inuu qofku qalbigiisa ka buuxsamo waxa weeyaan waxaan wacnayn oo malax iyo waxyaabo caynkaasi ah ayaa ka sahlan inuu qofku qalbigiisa gabay ka buuxiyo حديث تقار ساسو النبي كنت المام عليه الصلاة والسلام وحلين علماء صوت وحوي قفك وحو كمشغولة يا دي إلهي قرآن كيسي يحس كيسي هديت أقرين يا هديت يحفظ يوحيابها الله متكا بركا إن آد الله بالصداء وصيحة كبحة ما في عنوي إليه رضو النبي سيدنا عليه الصلاة والسلام باب في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا كان باب وباب في نوم رسول الله نعم ما يمدك هرية باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر أي هذا كان باب كلام رسول الله رسولك إلهي هذا الكيسي ويا وكو هذا الجري عليه الصلاة والسلام في السمر هبينكي وحويان صوتشيت كيسة دحدي والسمر والسهر بعد هدأة الليل وإن صوتشيدو هبينكم مركو كلا دغو شنقر اي waxaas ay go'do kadib in la soo jeedo ayaa la yiraahdaa as-samar samarka caynkaasi oo ah inuu qofku habeenkii soo jeedo oo cabaaru soo jeedo oo saamalaylo nabigu waa inoo diiday calayhi salaatu wasalaam
oo kaana yakrahu annawma qabla alcishaa walxadiida bacdaha wuxuu nebigu ahaa mid diida salaada cishaayi ka hor in la seexdo salaada cishaayi kadibna in la soo jeedo oo la sheekaysto nebigu waa diidi jiray calayhi الsalaatu wassalaam sababtuna waxay tahay salaada cisho ka hor hadduu qofku seexdo wuxuu halis ugu jiraa salaadiisii cishaa inay dhaafto oo hurdada uu seexday waagu ugu beriyo marka haddii cishaagii baa dhaafaya hadduu cishaagi ka hor seexdo waa in markaa qofku adkaysta uu sugaa inta cishaha la gaarayo gaar ahaan meelahan qurbahee dadku ay ku nool yihiin ee habeenkii iyo maalinta marka la fiiriyo habeenku uu yar yahayba oo maalintu ay aadka u badan tahay habeenkii uu soo galayo isagoo qofku maalin dheer soo jeedayo daalan oo rabo inuu maqrib tukado haddana cishadu tukado haddana laga yaabay cishihii inuu dib u yar dhacba oo habsaamo daaho oo qofka soo jeeditaanku mararka qaarkii ku adkaado hadduu qofku xilligaa seexdo salaadii cishaayi baa dhaafas haddana habeenkii baa yaroo habeenkii oo hore u dhamaanaya marka xilligaas oo kale in la seexdo cisho ka hor waa in qofku iska ilaaliya allahuma ilaa in qofka la toosinayo mooyaane hadduu qofka la toosinayo ama uu toosi karo saacadii wax lamida intuu ku buuxsado wax dhibaataa ma laha qofku waa iska seexan karaa laakiin hadduu qofku og yahay inuuna ka caynin ama uu ka baqayo cid kicisana una haysan waa inuu sugaa cisho kadib in la sheekaysto oo la iska soo jeedana nebigu waa diiday calayhi الsalaatu wasalaam yadna waxaa loo diidayaa saas ilaah inuu qofku hurdada caynkaasi uu ku raago ilaa salaada subax waqtigeedii uu qofka u dhaafo oo salaadii subax uu ka seexdo saasaa loo diidaya marka in qofku hore ka seexdo ayaa fiican oo wanaagsan suu habeenka qeybta dambena uu qofku salaatuleel ugu kici karo hadduu rabo khayrka inuu ka faa'iidaysto haddii kalena ugu yaraan salaadii subax uu ilaashado waqtiyadan dambe hadda lagu jirana aad baa loo soo jeedaa soo jeedka faraha badanna waxaa ka dhashay dadku ay ku mashquulayaan internetka ay isticmaalayaan iyo moobilada ee gacanta ugu jira gaar ahaan dhalinyarta waxaa ka dhashay habeenoo leyl in la soo jeedo oo wax malaa yacni faa'iido aan lahayn in lagu soo jeedo bal mararka qaarkii dembi iyo macsi xumaan wax iska waxa weeyaan laqwiya in lagu soo jeedo ay door bidaan ba soo jeedka habeenkii maalintiina la hurdo oo inuu qofku shaqaysto ama uu shaqo tago oo waxa weeyaan tacaynkaasi uu ka seexdo habeenkiina uu soo jeedo tacaynkaasi in la caadaystay aad u dhacday salaadihii waajibka ahaa sunnayaal dhaafee kuwaasina qofka jadwalkiisaba ayna ku jirinba waa dhibaatooyinka ka imanaya iyo masaa'ibta waaweyn ee aadka u weyn soo jeedka habeenkii bay ka mid tahay haddii qofku uu sabab uu u soo jeedaya ay jirto waa la ogol yahay tusaale ahaan hadduu qofku u soo jeedayo inuu cibaadaysanayo oo kale ama uu wax baranayo ama uu cibaadaysanayo waa loo ogol yahay wuxuunbaa shardigaa cibaadadaasi inayna sababaynin inuu qofka salaadii subax ay dhaafiso laakiin hadday keenayso salaada sunna ee habeenkii la tukanayo ama cilmi la baranayo ay keenayso subaxii qofka inuu dhaafayo xilliga caynkaasi oo inuu joojiyaa uu hore ka seexdaa si subaxii ugu soo kaco ilaa intaasi waa sunne subaxiina waa waajibe waxaa qofka loo ogol yahay inuu habeenkii u soo jeedi karo qofka waxa weeyaan reerkiisa iyo xaaskiisa u sheekaynaya ee waqti la qaadanaya ama qofka arooska ah ee reerkiisii waqti la qaadanaya taa laftigeeduna waa inay xadaysan tahay oo iyaduna ay tahay midaan dhibaato kale sida sheegay oo kale aan keenin meelo laga soo reebay jira waxa laga soo reebay mooyaane sida kale ma fiicna habeenkii cisho mar haddii la tukado wixii ka dambeeya in la saamareeyo haddaba halkan wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii uu jeediyey fi samar soo jeed habeenkii la soo jeeday dhexdiisa oo inta waqtigii xoogaa uu fogaaday
ilaa dadka qaar badan ay seexdeen habeenku uu degay shanqadhu ay yaraatay kadib xilligaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadal uu jeediyey ama uu yidhi tacaynkaasiya ayaa markaa halkan lagu tilmaamaya can anas ibni malik radia allahu canhu qaal anas ibnu malik waxa uu leeyahay intadarna annabiya sala allahu calayhi wasalama daata laylatin nabigaanu u kaadinay oo aanu sugnay calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mid ah oo salaadii cishaayi ayuuna nebigu u soo bixin ila isaga imaamkii ahaa oo asxaabtiisa tukan jiro masaajidka way ku sugayaan way yimaadeen markuu nebigu soo baxo ayaa salaada loo kici jiray salaada waxaa loo kici jiray markuu nebigu soo baxa calayhi salaatu wasalaam mar hadduu nebigu joogo uuna safar ku maqnayn ama xanuun ula jiifaa ayna jirin oo cid kale uu soo diray ayna jirin nebigaa la sugi jiray calayhi salaatu wasalaam marka sida mashruucee la jideeyey ee nebigana lagaga dayanayaa waa in markuu imaamka uu soo baxo loo istaago salaada aqiimka salaada doontaba ha noqotee imaamka markaa la sugaya oo aqiimitaanka xilliga la aqiimayo waxa iska leh imaamka muadinku salaada waqtigeeda markuu soo galo ayuu adimayaa markuu adimo aqiimkii baa harsan aqiimka waxaa la sugayaa imaamka la sugayaa imaamku markuu soo baxo kadib ayaa la istaagayaa oo aqiimkii baa loo kacaya imaamkii oo soo bixin weli in la iska sii kaakaco dadku ay is istaagaan arrinkaasi waa qalad arrin saxan maaha dadku dawa iska sii kacaan imika inagoo cidba looma joojiyo soo maha marka waxaa laga yaabaa in iyagu imaam kaleba samaystaan hebelona tuki imaamkana inuu joogaaba suuragala una dheerayn ama una fogeyn ama uu soo socdaba haddii la og yahay inuu maqan yahay tusaale ahaan ama uu cid la soo xidhiidho marka ciddaasaa booskiisii buuxinaysa uu la soo xidhiidhay markaana ciddaasun baa la sugaya laakiin innaga inteena kale masaajidka joogta waxaa laynaga rabaa waa inaan iska fadhino ilaa inta uu ka imanayo imaamkii ama qofkii ugu talagalay inuu booskiisii uu buuxiyo muadinkuna imaamkunbuu sugaya waqti baa de hadda lagu aqiimaa soo maha hadduu imaamku habsaamo ka waran waqtigiisa uu ka habsaamo waa la sugaya ila isaga imaamkiiya waqtiganna waa u isafgarad laakiin waqti sharcigu uu dejiyo la yidhi taayaan laga habsaamin maaha way ku fiican tahay xilligaa la isla ogyahay dadka ku xisaabtamayaan imaamka laftigiisu inuu ilaaliyo uuna noqon mid habsaamaya ama habsan fara badan la imanaya si aan dadka dhibaato ugu noqon laakiin nidaamka saxda wuxuu yahay imaamka aqiimka in la sugo intaa ka horna aan la kicin aan la istaagin oo qofku iska cibaadaysto adkaartiisa oo akhristo oo iska ducaysto wuxuu leeyahay anas radia allahu canhu intadarna annabiya sala allahu calayhi wasalama daata layla nabigaanu habeen sugnay xataa kaana shadru lleyl ilaa uu soo xasilay uu ahaaday habeenka kala barhkiisii yani nebigu aad buu u raagay calayhi salaatu wasalaam in badan buuna soo bixi ilaa axaadiista qaar ee ku timid dadka qaar baa lulooday masaajidka dhexdiisii dadka qaar baa jiifsadoo seexdayba masaajidka dhexdiisii oo nebigu waa raagay yabluquhu xataa kaana shadru lleyl ilaa habeenka kala barhkii uu soo xasilay yabluquhu isagoo habeenku kala barhka gaadhaya fajaa'a deeta rasuulku waa yimid fasallaa lanaa waa uuna tukiyey uma khadabanaa kadib nebigu waa noo khudbadeeyey khudbad soo korodhay bay ahaydoo oo de salaada cishaaye kadib marka la tukado khudbad lama jirteen waa khudbad caarida oo soo darido sabab baa keentay hawshaa dhacday faqaala wuxuu nebigu yidhi alaa ina annaasa qad salluu dadkii way tukadeen alaa ina annaasa qad sallow war hoy dadkii way tukadeen uma raqaduu deeta way seexdeen
dadka qaar inta iska tukadeen cishaayigoodii bay iska seexdeen oo dumarkii dadkii guryaha joogay iyo dadkii xanuunsanayay iyo ubadkii xalli wixii guriga ku tukanayay salaada cishaayi waqtigeedu markay gaadhay way kaceen oo way tukadeen kadibna way iska seexdeen iyo ciddii dee meelo kale ku tukanaysayba ilan salaada waqtigeedu soo golba muhiime laakiin qoladan waa qoladii nabiga la joogtay wa innakum lam tazaaluu fi salaatin idinkuna kamaydan zuulin salaad inaad ku sugnaataan ma intadartum الصلاة intaad salaad kala sugtaan oo maqrib bay tukadeen maxay sugayaan cishaay dadkii way iska tukadeen wayna seexdeen idinku laakiin kamaydan zuulin salaad inaad ku sugnaataan intaad salaad sugaysaan iska farfadhiya baad doontaan oo salaada tukanaysaan iyana jirin laakiin mar hadduu qofku intuu maqrib tukaday salaadii cishaayna uu sugayo inta uu fadhiyo waxa uu ka dhigan yahay qof salaad ku jira bimacnaa ajar ayaa uu helaya qofkaas duhur iyo casar saas ilaa qofka salaad tukada deeta salaad kalena suga oo fadhiya masaajidka qofkaas wuxuu ka dhigan yahay qof salaad ku jira oo ajarkii buu helaya qaala al-Hasan Hasan waxa uu yiri wa inna al-qawma la yazaluna bi khayrin al-Hasan al-Basri qawmku kama zuulayaan salaad لا يزالون بخير خير قار كسوغان إني نقدان كزولي مايان ما انتظروا الخير انت خير سوغان وقفك خير وحويان دي سمايا هدانا خير كلا سوغيا كاسي خير بوكو سوغيا حديث كود ذاك استنباضي أو كدري شنيا متفق عليه والسكو وافقه واللفظ للبخاري لفظ كان واحد اسكال إمام البخاري هذا الكاو النبي يقول عليه الصلاة والسلام soo jeed dhaxdii oo habeenku durkay ilaa waxa weeyaan habeenku xilli dambe uu noqday ama uu kala degay oo shanqadhu ay yaraatay iyo hadalka uu nabigu yiri xilliga ayaa uu baabu yahay waxa laga faa'iideysanaya xadiidka salaada cishaay in dib loo dhigi karo waxay leeyihiin culimadu waxayba ku fadli badan tahay in dib loo dhigo salaada cishaay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu salaada cishaay dib u dhigay wuxuu asxaabtiisa ku yiri lawla anna shuqqa ala ummati hadaanan ka baqaynin inaan ummadayda aan dhibo ama culays iyo waxaan qaadi karaynin aan wax weeyaan saaro hadaan taa ka baqaynin waxaan amri lahaa salaada cishaay in la tukado xilliga hadda tukateen wa xilli habeenku kala badh wax weeyaan noqday oo aad u durkay waa xilli dambe xilligaasaan fari lahaa marka in salaada cishaay dib loo dhigay ku fadli badan tahay bilaha culimadu laakiin waa goorma waa markuu qofku keligii uu tukanayo qof keligii tukanaya dumarka iyo qof xanuunsanayo weyn oo gurigiisa iska joogo aan jamac imanayn oo soo jeedi kara iyo qof kastoo keligii tukanaya salaada cishaay dib uu dhigan kara kaas waa qodobka labaad waa jamac masaajid oo dad masaajidka ku tukada oo is-og iskana warhaya wax dhibaan ayna ku ahayn inay salaadii dib dhigtaan in yaroo istaqaana masaajidka hadday habeen walba ku tukadaan salaada cishaay dib bay u dhigan karaan waa in xilligaa tukano iyo waaya laakiin qaar ka mid ah hadday ku dhib mudanayaan oo ay rabaan salaada cishaay waqtigeeda inta la tukado waqtigeeda ugu horeeya dee la kala taga markaa xilligaa dib loo dhigi maayo oo rasuulkuba waa kan haddaanan ka baqaynin inaan dhib iyo culays aan idin saaro xilligaasaan tukan lahayn salaada cishaay ka muxuu tixgeliyey jamciisii rabay inay la tukadaan haddana sugi kari la xilligaa dambe ayuu nabigu tixgelinayaa calayhi salaatu wasalaam marka haddayna jirin cid ku dhib mudanaysa dib baa loo dhigi karaa hadday jirto cid ku dhib mudanaysaana marka waqtigeeda la tukan doonaayo dib loo dhigi maayo sayna fitnana u noqon dadka qaarkoodna arrinkaasi culays uuna ugu noqon waxaa laga qaadanaya xadiidka markaa isna in dadkan jamacan iyo bulshadan uu qofku hogaamiyaha u yahay inuu tixgeliyo oo uu ra'yigooda iyo baahidooda intaba uu tixgeliyo ayaa laga qaadanaya oo meesha mas-uulbaan ka ahay oo anaa maamula ama ugu sareeya macnaheedu ma aha inaad saa doonto yeelayso wixii aan xaaraanna aanayn dembina aan ahayn dadkan baahiyahooda gaarka
danahooda gaarka ah ra'yigooda waxaasoo dhan tixgelin bay u baahanaysaa waxaasoo dhan in la tixgeliyo taasna waxaa ku dhismaysa kalsoonida iyo isku soo dhowaanshaha ay ummadu isku dhowdahay iyo waxaasoo dhan baa ku imanaya sidaa awgeed baa rasuulku wuxuu ahaa mid aad isagoo imaamkiiya haddana jamaca iyo masaajidka iyo dadka uga warhaya wuxuu odhan jiray midkiin markuu naftiisa uu tukinayo falyutawil maa shaa inta uu doono ha dheereeyo waidaa sallaa axadukum annaasa falyukhafif markuu midkiin dadka uu tukinayana bal salaada ha khafiifiyo faina fiihim alkabiiru waalcajuuzu wadulxaaja walmariidu wadulxaaja waxaa ka mid ah qof weyn waxaa ka mid ah qof baahi kale ay wado oo salaadiina rabay inuu tukado mid xanuunsanaya dadku way isku dhex jiraan marka salaada dheer qaar ay dhibaysa hadday jirto waa inuu imaamku soo kooba rasuulku dadkuu tukiyey ilmo yar baa ooyey oo masaajidka jamcii ku tukanayey waxa weeyaan qof ka mid a u watay rasuulku waa salaadii hore uga baxay isagoo tixgelinaya ilmaha yare ooyaya iyo dee waalidkiisii oo masaajidkii ku tukanaya oo hintu way dhibaysaa way damqaysaa salaada in hore looga baxa uu jeclaysanayaa marka rasuulku hore uga baxay calayhi salaatu wassalaam baabun fii nawmi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam baabun ay haadaa kani baabun baab weeye fii nawmi rasuuli illaah rasuulka ilaahay hurdadiisii ka waramaya oo ku saabsan calayhi salaatu wassalaam hurdadu waa aayad iyo calaamad weyn oo ilaahay calaamadaha waaweyn ee lagu garta ka mid ah awooddiisa iyo maamulkiisa iyo qudradiisa maamulka koonkan maamulaya ayaa lagu gartaa addoomihiisa isagaa ugu madna sheegtay wamin aayaatihi manaamukum billeyl waannahaar waibtigaa'ukum min fadlih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah hurdada habeenkii seexanaysaan iyo maalintiiba iyo inaad dalbaysaan ilaahay subxaana watacaala deeqdiisa iyo fadligiisa iyo dheeraadkiisa ina fii dalika la aayaatin liqowmi yasmacuun taasi waxaa ku sugan aayaad wax lagu qaato oo cid wax maqlaysa ay ugu sugan tahay ilaahay baa inoogu nicmiyey subxaana watacaala dadka qaar baan seexan karayn oo laga yaabo maalin lool inay soo jeedaan habeenkii oo leylna inay soo rogaan oo ay soo jeedaan oo dhinacu dhulka u qaban waayo laba indhood bay isku geyn waayaan innaguna qaar badan oo inaga mid a waa kuwaa seexanaya maralli markuu saa u jiibsado ayuu seexanaya in badan buu hurdaya isagoo hurdadaa ku degaya oo ku raaxaysanaya marka waa nicmo weyn dee markuu qofku xanuusto ayuu ka warhayaa nicmada weyn ee hurdada ku jirta habeenkuna wuu ku dheeraadaa oo ma dhammaado qof seexan waayo buu koo xanuunsanaya habeenku hadduu doono ha gaabnaada isagoo aad buu ugu dheeryahay leanna wuu kala degan yahay shanqar ma jirto dadku way wada seexdeen keligii baa soo jeeda aad buu markaa ugu dheeryaho maba dhammaanayaba alaa ayuha allaylu tawiilu alanjil bisubxin wama alisbaaxu minka biamthal imraw lqays ninkii la odhan jiray gabigiisi waa kii ku lahaa war habeen yahow dheeri iga caddow waxa weeyaan maalin meesha ha timaado markaasa waxa uu raaciyey wama alisbaaxu minka biamthal waxoogaa problem baa ku furnaa wama alisbaaxu minka biamthal maalintuna kuma dhaanta buuri oo qof culays iyo howl haysato habeenkii da waa ku keli uunoo dadkii baa ka wada seexday markaa aad buu u dareemayaa laakiin markuu waagii baryana hawshiisii halkii un bay taagan tahay soo maaha wama alisbaaxu minka biamthal maalintiina kuma dhaanta buuri oo dee hawshii halkii un bay taalaa laakiin haddana calalaqali habeenkii qofku maalintii uu iska socsocon karaa wadadaasuu qaadayaa meelo kaleu iska tegi hora ku furnaatabe almuhim hurdadu waa nicmadaa weyn ilaahay subxaana watacaala uu bixiyey waa naxariis wamin raxmatih jacala lakum alleyla waannahaara litaskunuu fiihi walitabtaguu min fadlihi walacalakum tashkuruun marka ilahay in looga mahad noqo oo aynan odhan wallaahi hurdo fiican baan seexdaayo in fiican baan hurdi karaayo laakiin ilaahay loogu mahad noqo oo qofku uu bal xasuusto dad fara badan oo hurdaba la
oo kiniin iyo waxay cabaan ama ay cunaan ku seexanay oo taa la'aanteed aan seexanayn ilaahay loogu mahadnaqo taas waa qodob rasuulku waa seexan jiro calayhi salaatu wasalaam dee basharku la mid aha sida dadku u seexdaan ayaa uu u seexan jiray qaab iyo kayf u seexan jiray baa markaa jira in la seexdaa waxyaabaha ilaahay addoomihiisa uu ku abuuray jibiliga ee dabeecadda bay ka mid tahay markaa hurdadu sideeda cibaado uma aha in la seexdo iyo in la soo jeedaa laakiin kayfiyadda iyo qaabka loo seexanayo iyo sida loola imanayo iyo hurdadu qofku seexanayo ujeedada uu ka leeyahay waxyaabo kaloo macno u sameynaya oo raacaya jira sidaa awgeed baa dadka qaarkood hurdadoodu waa mid ay ilaahayba ugu dhowaanayaan saxaabadu waatay odhan jireen abu hurayra habaan filayaaye naxtasibu fii nawmatina kamaa naxtasibu fii yaqdatina bay odhan jireen ilaahay baanu ugu dhowaanaa hurdadayda sidaanu ugu dhowaano soo jeedka oo soo jeedka qofku waa soomayaa wuu cibaadaysanayaa wuu adkaar buu aqrinayaa quraan buu aqrinayaa cibaadad buu ilaahay buu ugu dhowaanayaa sidaas leeg hurdadanna ilaahay baanu ugu dhowaanaa maxaa loo jeedaa wuxuu qofku u seexanayaa si uu naftiisa waxa weeyaan ugu raaxeeyo uu u dejiyo markuu nafiso kadibna uu ugu awoodeysto ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa niyad fiican buu ku seexanayaa bal yaro seexo yaro naso si aad goodho awood aad ugu hesho inaad ilaahay subxaana watacaala u cibaadaysato oo daacadiisa aad la timaado qofka sidaa niyadiisa gashaday u seexda iyo kan iska seexanayaa uun isku mid maaha xataa cuntadii cabitaanku waa la mid qofka markuu cunayo ee uu cabayo u niyeysanaya awood cibaado aad heshi ee wax cun oo wax cab iyo qofka sidii caadiga ahayd ee baahidii nafta uun ka jawaabaya labadaas isku mid maaha adduunyadan waxaa la isku dhaafay waa niyadda iyo qalbiga ma aha un camal farabadnaan iyo camal samayn maahe waxaa la isku dhaafo dadku ay ku kala horeeyaan waa qalbiga badqabkiisa iyo niyadda wanaaggeeda ayaa la isku dhaafaa waxaa laga yaabaa qof aad u camal yar oo camalkiisuba uu kooban yahay inuu aad iyo aad uga horeeyo qaar kaloo camal badan xilliga rasuulka ka dhacday calayhi salaatu wasalaam oo maalin maalmaha ka mid ah nin baa soo maray nebiga ee asxaabtiisa oo meel fadhiya markaasaa wuxuu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam ninka halkaa maraya waa ahlu janno 3 maalmood buu rasuulku saa sameeyey saxaabadu waxay dhahdeen ninkaasi wallahi hawshiisu ma sahlana ninkaas waa nin cibaado ku balballaadhsaday oo nooc alle noocii la samayn jirayba walaha wuu sameeyaa ibnu cumar baa u duur galay wuxuu inuu soo ogaado wuxuu ninkan sameeyo uu ka daba tegay gurigiisa meel ka horna iskaga yaalay ayuu ugu tegay war marti baan ahay buu marti gari uu soo dhaweey soo socod buu 3 habeen buu marti u ahaa ninka markuu soo shaqaysta maalintii wuu iska yimaadaa wuu iska seexdaa subaxiisa markay gaadhana wuu iska kacaa wuu iska tukadaa wuu iska shaqo tagaa ibnu cumarna wuxuu raadinayaa salaatuleyl fara badan iyo quraan aqrin fara badan iyo adkaar fara badan iyo hawlo fara badan soon iyo yani wax badan oo ziyaada buu raadinayaa oo ninkan janno uu ku mutaystay uu ka waayay 3 maalmood markay dhamaadeen baa wuxuu ku yiri waa inuu dhageyso ama marti kale lama ahayn laakiin saasaa dhacday saasoo nabigu nagu yiri marka waxaan raadinayay waxaad samayso waxba nama samaysid buu sidii caadiga dadku ay samayn jireen in baad samaysaa salaadahaagii waajibka ahaa inta iska caadiga ahayd maxaa dadka aad ku dhaaftay wuxuu waxaan ku dhaafo hadda aan sheega garan maayo waadiga hadday arkayba waxaan ku dhaafo waxaasaan sameeyaa ma garanayo laakiin haddii laga tegi waayo oon isleeyahay talow maa taasaa waxaa mansilo iyo boos ku gaarsiiyey in alliya intaa magaalada madiina joogta buu yiri hal qof qalbiga waxba uguma hayo qof maanta xumaan qalbigayga oo aan ugu hayaa oon caro iyo shaxnaa iyo cadaawad iyo buqdi ma jiro buu qalbigaygu ay bad qabaa cidna waxa uma haysto saxaabigu wuxuu radiyallahu anhu huwa daak kan raadinayaba waa ka waxaan dadka ku dhaafiyey
وقلبي وناقا قلبي وناقا كنا في لكن نقول امسى عدو من لنا عدو جنو بداية سمع هذا عدو جينا كما شاكينا عدو جي إلهي وينو شاكي الشيطان كوا عدو كاك شاكين منه هذي قف ما أنت لا عدو جاك بلنيو بل ما نو شيء كرتا الشيطان شيء مايو قال له شيء مايو وحيابي دين تعدو يا وش يتم شيء هبل يهبل يهبل يهبلا يحصنيا marka cadowgeenu waa dadkeenii muslimiinta ahaa waa dadkii qaraabada ahaa waa dadkii faamilka ahaa waa dadka asxaabta ahaa kuwaasa inoo cadow ah waasa qofku wuxuu leeyahay wallahi cadowgeyga badan bacdo ku wada xiran cadowgeyga badan marka dadkaas cadow qofkii ka wada dhiganaya hadaa tiraadana cadow ma lihiyo kula yaabaysan cadow lahayn المهم cadowgeenu waa shaydaanka cadowgeenu waa gaalka cadowgeenu waa nafteena oo cadow inagu ah oo waajibaadka ilaahayna dhaafinaysa oo muharramaadka inagu ridasa taasaa la rabaa in la iska jiro waxaan ka wadaa qof aan acmaal badan ba samayn laakiin qalbigiisa ilaashaday ayaa dad badan ku dhaafaya qof niyadiisa wanaajinayo wax walba ilaahay daraadii ugu dhawaanayo qalbigiisii ikhlaas la imanayo oo waxa ilaahay ugu dhawow leh ayaa wuxuu xisaabsanayaa ilaahay inuu ugu dhawaado cunadiisa iyo cabitaankiisa iyo hurdadiisa intaaba ilaahay ugu dhawaanaya qof inta ilaahay ugu dhawaaday soo jeedkiisina de hadalkeeda bada المهم rasuulku wuxuu ahaa mid seexda calayhi salaatu wasalaam marka qaabku u seexan jiray nabigu wuxuu inoo sheegay marka la seexanayo inuu qofku soo weysa qaato inuu qofku midigta u seexdo inuu qofku adkaarta u aqriyo waxyaabo badan la inoo sheega jira qayb kamid ah halkan markaa lagu tilmaamaya عن أبي قتادة رضي الله عنه قال وحول أبو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوها إذا كان في سفر مركو السفر كسوغيهي فعرس بليل يتهبين وفراش كيس أهيده وحل هراء رسولك دورين وصيحه فعرس بليل وحلقه وضع حل هراء هبينكو يهي مد بلادان ورسولك أهيده فراش كيسة فعرس بليل أي آوى إلى فراشه فراش كيسة وأصهيده يتو النبي قدوانه إنه السيحد عليه الصلاة والسلام وحوها يضجع على يمينه من أسيحده مدكتيسة مدكتو النبي سيحن شري وإذا عرس مركو النبي فراش كيسة أهيده قبيل الصبح صبح إن يرون كهر وهبينك بدن كيسة أو صعدة يتحلق أو الدقو وحويان سفر كيو كيستاغو أو الدقو أو الضانين وير عندها وسكو قبطو أي تهي قبيل الصبح صبح إن يرون كهر وصبح دي تودو يهي نصب ذراعه ندن كيسة أي نبي تاجر عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه مذحيس وحو سارج شري على كفه كف كيس سارج شري ونبي ساسو سمين شري عليه الصلاة والسلام كعنتي سندون كان أيو ساو تاجر لوك وجهي سنة وحو سارج شري كف كيس قاب كاسو ساحن شري وقاب محكي أي مركا للصبح إلى صلوه إنه قفك هره وبرارو صوما وكان كله وإذا عرس قبيل الصبح صبح إن يركهرون هذو قفك سوى يسكو كلا بحيو يسقو دالنا سفرنا كشري أما شقي لا ما أنت ودي صبح ينو دوي هاي هذو سوى يسكو كلا بحيو ما حدا عيا مركا الصبح ودافع سما قرح ذوك كعيا قفك تاسي إنه دعين نبي آدابته أما قاب كعين كاسية يوسف حنشري والله قادنا يقول هذو قفك وأركيو inuu habeen fiican uu haysto gabadhowna uu si fiican u kici doono si fiican uu iska saxan kara dhankiisa midig ha u seexdo ha iska jiibsado hadduu qofku yahay qof ka baqaya inuu waqtigu dhaafo ama waqtigiisi u soo dhow yahayna isticdaad iyo garo horta bal ha galo ha ugu talagalo waqtiguna waa yar yahay subaxuna waa soo dhow yahay si aad ku kici karto u seexo nabigu qaabkaas u seexday calayhi salaatu wassalaam wuxuu nabigu inoo sheegay أنبياء هديهين إندهود إني سيحدان لكن قلبي جود ونسيحن إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا
ولا تنام قلوبنا أنا هدان النهي بولي هاي أنبياء يا نبياء وحا سيحضا عندها يجا لكن قلوب تيضو ما سيحضو سيدا وقيد با أنبياء أما النبي عليه الصلاة والسلام وحيابها وقارك أقول لها وحا كمدا هدو سيحضا وصوكعو يعني إنو ويسقاتها إنه واجب كواهين dadka waxa waajib ku ah haduu qofku seexdo uu gamco deeto uu soo kaco maxaa laga rabaa inuu weyse qaato nabigu maalin habeen buu seexday deeta bilaal ba adimay nabigu waa soo kacay uu soo toosay dadkii buu tukiyey ma buu weysaysanba markuu weydiiyey su-aashaana wuxuu nabigu ku yiri innaa macshara alanbiyaa tanaamu acyununa walaa tanaamu quluubuna quluubtaydu ma seexatee indhahayga seexda hurdadu aadaab badan bay leedahay aadaabta ay leedahay in loo ilaaliyo ayaa markaa muhiima uu qofku weyse qabo ku seexdo midigta uu seexdo adkaarta uu sii aqristo qul huwa allah iyo rabbil falaq iyo birabbin nas iyo gacmihiisa uu ku tufo jirkiisa inta uu ka gaari karo uu ku masmasaxo qaabka qofku uu seexdo ayaa markaa laga rabaa in qofku iska seexdo maaha وإن الحس يذكر الله سبحانه وتعالى لو صيحه مشكلة جرتا وقت جينا دنبه dadka aadka ugu faraha badan ba waxay tahay dadku waxay seexdaan cidii isku meel seexata iyagoo sheekeysanayo sida sheeko u wadaan ay kala gamayaan ama waxa laga yaabaa qofku hadda ba sheekada waa laga maarmay sidoo mobilkiisa qofku ugu jeedo ayuu gamaya marka adkaarna aqrin maayo ilaahina subhanahu wa ta'ala xusi maayo goor markuu soo toosana adkaartii xuskii la aqrinay marka soo tooso qofku waa iska ilaawayayo waxa laga yaabaa mobilkiisa inuu hore ugu mashquulo marka xaqii adkaar laga seexan lahaa adkaarna lagu soo toosi lahaa hadda mobil ba lagu seexdaa mobil lagu soo toosaa kaasa dhikrigii malaha noqday isaga la xusaya laakiin waa inuu qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala xuskiisa ku seexdaa qofku ma oga hurdada uu seexday talo muu ka soo kici imsa intay seexdeen markii toosiya la isiri iyagoo meeyda loo tagay ciida ka badan qofku ma oga qaab uu dhimanayo ducooyin baa jiro nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku habeenkii uu sii aqriyo marka uu seexanayo oo ay noqoto ducada ugu dambeysay uu qofku aqriyay markuu seexanayay sidaana uu ku dhinto inuu jannada qofkaasi galayo qofku waa inuu taaqriya اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت توقفك دعاء أقريه دعاء وقدم بيسنة نقطه كسر يحضر هبين كاور انتو شندو قلاب رسولك عليه الصلاة والسلام لما أعلن قفك موابل كسر يحضر sidaa ku dhintaa jannu galaya lama war waxa laga yaabaa in qofku dambi dhageysanayay ama uu dambi daawanayay marka jiilkeena dambe iyo dhalinyarteena in lagala dagaalamo oo aad looga ilaaliyo oo waalidiintu ay ka tarbiyadeeyaan aad bay u mudan tahay halkaan ku deena darsigeena caawo Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam billahi tawfiq